kalfadhigani ay maanta golaha deegaanka Gabiley fadhiisteen oo ahaa kii 11aad ay yeesheen golaha deegaanka Gabiley ayaa waxa lagaga hadlay shan qodob oo ay kamid yihiin magac bixinta xaafadaha magaalada iyo qaybaheega qaab dhismeedka waaxaha dawladda hoose xeer hoosaadka maamulka gudiyada xaafadaha magaalada shirgudoonka golaha deegaanka oo ugu horeyn halka ka hadlay ayaa waxa uu laba qodob oo runtii muhiim u ah shaqada golaha deegaanka iyo dawladda hoose oo hayaan deegaanka iyo dadka ku nool runtii waxaanu soo bandhignay maanta structure ama qaab dhismeed golaha deegaanku markii uu horeysay uu sameeyay dawladda hoose kaas oo ah kii ay ku shaqeyn lahaayeen 6 waaxyood ee dawladda hoose oo ay ku lamaan tahay shaqo qeexidiisii si loo garto dawladda hoose iyo mas'uuliyiinta jooga iyo shaqaalaha jooga oo qof kastaaba u garto adeegu ummadda oo qabanayo iyo shaqada oo qabanaya waxay tahay isla markaana loogala xisaabtami doono runtii aad baan ugu mahad celinaynaa gudida joogtada ee golaha oo door weyn ka soo ciyaaray inay qaab dhismeedka iyo shaqo qeexidaba ay golaha hor keenaan golahuna runtii uu ansixiyay dhaqan gelin doono taasoo fudaydinaysa adeegii aan bulshada u haynay markii uu horeysayna golaha deegaanka u suura gashay qodobka labaad waxa weeye in magaalada Gabiley loo sameeyo 4 waaxood ama 4 xaafadood oo ay yeelato magaaladu golaha deegaanku falanqayn iyo kadib wuxuu u saaray gudi ka soo tala bixisa arrintaasi oo ka kooban 5 xildhibaan waxay soo jeediyeen isla markaana goluhu dood iyo falanqayn kadib la gartay in magaalada Gabiley loo qaybiyo 4 xaafadood oo waaweyn inagoo ku xisaabtamana koritaanka ay magaaladu kortay isla markaana ku xisaabtamana maamul daadejinta iyo in adeegu dadweynaha si toos u gaaro 4 xaafadood waxa la raaciyay magacyadoodii xaafad sidaad halka ka arkaysaan hore loo sharaxay waxay noqonaysaa xaafad ka sareysa laamida Hargeysa iyo Boorame iskaga gudubta oo loo bixiyay New Gabiley xaafad waxay noqonaysaa xaafad ka soo sokaysa laamida iyo laamidan dawladda hoose hormarta oo dhinacan ka soo xigta loona bixiyay wada jir xaafad waxay noqonaysaa qof loo dawladda hoose kamida ama dawladda hoose jooga waaxda salaamo soo qaadanay waax walibana sida ayay u qaybsan tahay oo u sii daadsan tahay waxaan doonaynaa shaqaalaha dawladda hoose ee dawladda hoose ka shaqeeya ee buux dhaafay ee faraha badan leh inaanay maxay xisaab fara badnaan oo qof waliba uu yeesho xafiis kursiga mas'uuliyahay iyo shaqo u hayo inta waxa garab socota shaqo qeexistii oo qof walba shaqadiisu waxay tahay Cabdirashiid Salebaan Muuse Somali Cable TV Gabiley.